han leh hiigsi leh hiraal u muuqdo inaad noqotaa waa lagama maarmaa himmadu meesha ay degtaana waxay culammadu yidhahdaan waa qalbiga haddii himmadaadu ay korrayso xataa jidhku hadduu quyuud ku xidhan yahay quyuudda wuu ka furfurmaa himmadu hadday korrayso bal aan laba mucqad laba qof oo kursi ku dul fadhiyaan tilmaamo falastiin waa maqashaan iyo urur xamaas la yidhaahdo yuhuudda jihaad kula jiro iska dhiciyo dunida wixii bam yaallay lagu garaacayo weli istifaacaya ururkaa ninka sameeyey ee hoggaaminayay hagayey korsuu dul saaraa meel dhaqaaqdoo jidhkiisii ma jirin markuu wax akhrinayo waraaqda kitaabka qur'aan ee uu akhrinaya inaanuu dhalay u rogi jiray maalin bay waxay yidhaahdaan inanku dhalay baa seexday ka gamay si uu rogaa buu garan waayo kitaabkii uu akhrinaya waraaqdiisa carabku isku dayay inuu ku rogo meel dhaqaaqda carab buu leeyahay maca daalik xoogga yuhuudeed buu hor taagan yahay dhakhtarkiisaa yidhi aad baad u tamar darraysay waxaad u baahan tahay na siino dabeetana wuxuu yidhi may ee masaajidka ha laygeeyo ramadaan bay hedee waa caawa soo jeedayaaba waa cibaadaysanayaa soo jeeday lagu siday intay u adkaysan weyday markii masaajidka laga soo saaray ayaa faantannimada cirka mara inta loo soo diraa gantaal lagu dhuftay yacni ninkaasi hammuu siday jidhna intaasu ka yihi itaalkiisu waa carabkaa dhaqdhaqaaqaya caqligana wuu qabaa laakiin isma odhan muqcad baa tahay qof fadhiya baa taan waxba qaban karin isma lehee wuxuu u taagan yahay inuu diintiisa iyo ummaddiisa iyo dadkiisaba xoreeyo ummad dhan buu u ahaa maxay hoggaan ruuxiya oo hoggaaminaya xarakaad dhan oo jihaad iyo isdifaac iyo wax iska rabaya dawlado dhan oo dunida waaweynba u adkaysan karila ninkaasi aan waxba qaban karin ee kursiga lagu jiidayo ayay u adkaysan kari waaye hamiga sare aan xagga gaalkana idinka tusiyo saynisyahanka maanta cilmiga fiisigiska dunida u caansan ee mulxidka ee kutubtan maanta caankaa leh isna waa muqcid waa sida ninkaasi oo kale waa kursiga ugu sarreeya Cambridge University kursigu Newton fadhiyi jiray waa ninkii fadhiyay dhawaan baa la siiyay taqaacud inuu ka fadhiisto waa Stephen Hawking waa nin Ingiriis ah oo isagoo 12 jir uu ku dhacay shalal oo jidhkoo dhami shalal qabo oo aan meelina dhaqaaqaynin